السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا قيمة بدنا ku xidhan barteena Facebook ee Xogdoon Media waxaan maanta leedahaynaa xog xaqiiqo ah amba aan ku falanqeyn doono dhaqan xumada sida weyn u baahsan ee ka jirta baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok iyo sidoo kale qayb ka mid ah bartan Facebook saaxiib maxaa aragtay mise waa indhahayga oo kaliya ayaa qabta aaladan sida faash xun loo socota amba sawiradan sida faash xun loo gudbaya ee ay soo dhigayaan website-da faaga ah amba ku shaqeysta inay yihiin iyagii hablahan oo ay soo dhigaan waxaan ahay gurdoon iyo waxaan ahay intan ayaan jiraa garoob baan ahay wax kale ayaan ahay iyo macnahan caynkan ah ee kusoo dul qorayaan nambarada faaga ah kuwaas oo ay jiraan qaar badan oo wiilal Soomaaliyeed oo caan ah amba kuwo Soomaaliyeed oo far badan ku rikaatay iyo sidoo kale hablo badan oo dhaqankii muslimnimada iyo Soomaalinimada ee sharafta iyo qiimuuska iyo maamuuska ku dhisnaa bedelay sawiradoodana u adeegsaday iyagoo oo qaawanaan wax yar dhaama oo dhar la'aan u adeegsanaya baraha bulshada kadibna ay jiraan tuugo aad u tiro badan kuwaasoo adeegsanaya iyaguna sida website-da xaaraanta amba website-da kale ee ay dadka diinlaawayaasha leeyihiin ee ay ku ibiyaan sawirado kale iyaguna ku ibinaya ee odhanaya waxaan ahay garab hebel ayaan ahay waxaan ahay gurdoon waxaan joogaa halkan ilmo ayaan haystaa amba ma haystaa waxaan ahay garab ereyadan waa kuwo inta badan ku taxan mareegaha Facebook oo si weyn loogu faafiyo page been abuura oo ay leeyihiin dad tareer oo aan isleeyahay wadaha diinlaawayaal ah kuwaas oo hablaha Soomaaliyeed iyagiiba sawirada u soo galay si dhaqanka iyo anshaxa ka baxsan oo sawiray gadaashooda hore iyo todo dambe oo kaliya haddana iyaguna sidan had iminka qoraalka ku arkaysaan oo kale u adeegsanaya kuwaasi oo sawiro barkood aad garanaysa wajigooda iyo bar aad garanaynba oo maanta habla Soomaaliyeed ku soo qoraya inay yihiin gurdoon daacad waxaan jooga heblaayo qofkii aad shalay arkaysay aad u garanayso ayay lagu soo qoraya heblaayo hebel ayaan ahay sawirkiisii tala soo qaato kadibna waxa la oranayaa waxaan joogaa meel heblaayo taasi oo ka baxsan anshaxa iyo dhaqanka saaxiib bas weydiisay Soomaaliyeed arrimahan ayaa mawduuca maanta ka hadli doona balse waxaan ka codsanayaa marka hore inaad fiidiyoga like saarto u share gariso saaxiibada badan ee Facebook ku jira si ay u gaadho muuqaalkan oo hay waalidiinta dhalay dadkan hablahan qiimaha badan leh hay uga hortigaan inay hablahoodu galaan sawiro noocan oo kala ah oo ay baraha bulshada ku dareeriyaan amba ay ku faafiyaan maxaan ahay dad diin leh muslimiin ah boqol dhaqan leh kadibna inaan sawirno galo inakii oo jirkeenu uu dhamaan muuqdo oo qaybteena hore qaybteeda dambe ay hawleen sawiraan baraha bulshada dhigaar kadibna ay qaar tuugo intay ka sii qaadaan hay internetka kaga ganacsadaan waa wax dhaqankeena iyo muslimnimada ka baxsan waayo muslim marka aad tahay waa inay gabadheedu sharaf iyo qiim leedahay balse waxa kale oo mawduucan iyadna gaarsiinaya waalidiintii hablahan dhalay halkee bay mareen magaaladan oo kala dhaqankoodii iyagu aanan mar hore tuuray ee dhaq iyo kuween ku daydeen oo waxba isma dhaaban markaad eegto dharka ay xidhan yihiin suuqyooyinka magaalooyinka marka aad joogto waxaad arkaysaa hablahi oo soo xidhanaya dhar khafiif ah barkood hay wiilal iyo dadka suuqa jooga ku oranayaan halka ay barka kalena haysan cid la hadlaysa ilaahay oo ka intaasaba ay saxaafada u tagayaan baritoolana saaxiibteed ayuu sheegaysaa kadibna sidaas ay suuq ugu sifaafaysaa saaxiib muslim ayaan ahay walaashida Soomaaliyeed ah ee sawirada sanska qaadaysa kadibna baraha bulshada dhigaysay ka digtoono waxyaalahan waxa jira dad ku rikaateynaya haddii doonaan intay sawirada oo dhan qaadaan ayay ku odhanayaan waa kan ee lacagta iska bixi haddii kale sawirkaagan waa faafinaya sidoo kale muuqaalo ayaa jira wiilal badan oo hadda aan muuqaalo ku soo koobin oo iyaguna ka duuba hablaha sanoo kale muuqaalo waa dad aad u caana dadkaasi oo shabakada la shaqeysta internetka ah wiilal badan oo saaxiibaan hay Sakariya Timcade oo kale Cadi iyo Cali Aadan Muumin iyo sidoo kale Munasir Maxamed wiilasha ayaa si weyn uga digay dadkaas waa dad intay qofka la hadlaan kadibna video ka duubaan ayay wiil ha ahaato gabadh si ahaato way ku rikaateen kadib waxay ku odhanayaan ereyo macaan ay kugu soo jeedinayaan kadib marka ay muuqaalka ka duubtaan ee adiga had muuqaalka u duubto waxa dhow la oranayaa ama waxaan ku faafinaa murugaha internetka si ay dadkiina iyo familigiina u arkaan muuqaalkan mise waxaan siinaysaa lacag intaas lacag badan ay ku xujinayaan dabcan kumayaal doolar ay ku xujinayaan taasi oo hadda awoodin inaad bixiso haddii aad adigu lacagtan bixin kari weydana waxa khasab in baraha mareegaha internetka lagu fiyo amba bal laga iibsado applicationada xun ee fiidiyada foosh xun la bixiyo haddaba saaxiib internetkan maanta waxa uu noqday aalad horumarsan aaladaasi oo xataa qaar dad badan u noqotay shaqadaasi oo hay waqtigooda iyo mafacooda iyo maskaxdooda galiyaan laakiin sidee baan uga badbaadi karnaa inagu
waxaan uga badbaadi karnaa saaxiib inay gabadhu sawirka ay iska qaada noqdo sawir iyadii oo asturan ah se aba ahaadee haddii ay sawirka telefonkeeda ku haysato oysan u dirin wiilka ayare ay maanta isjecladaan amba beri isbartaan sawirkii oo noocan ah isaguna ha una mareegtiisa internetka kusii jiro ama saaxiibkii u diro saaxiibkiina uusan san ugu soo faafin waxay noqon lahayd inay dadkeena ay noqdaan kuwo dhowrsoon xigmad iyo sharafna leh laakiin haddii ay sawirto qeybaheeda hore qeybaheeda dambe ee jirka ugu waaweyn kadibna ay u dirto saaxiibkeed amba wiilka yare shalay isbarteen amba gabadha ay isbarteen iyadana kadibna ay iyadana usii dirto asxaabteeda amaba marka ay khilaaf yimaado ee labadii qof isku dhacaan isku xumaadaan ha usii diroon iyaguna dadka amba ay sii faafiyaan iyaga baraabasho ku faafayaan waxay noqonaysaa inay gabadhii qoomayso kadibna ay noqoto meel ay ka soo celin kareen ma haysid aduu facebookii kale qof kale ayaa iskale ma kontareshid kamana saari kartid sawirka dadkiini iyo faamiligiini hooyada iyo aabaha ay dadkiina dhan way ku arkayaan waxaan ka daawanayay muuqaalka internetka qaar ahaana qeybta tiktoka gabadh iyadoo tiktok iska duubaysa kadibna aaladda tiktok ee telefoonka lagu xirto isticmaalaysa oo aabaheed soo galay kadibna uu ku dhiftay ushii hoyay si xoogan u qaylisay kana carartay telefoonkeedii taasi oo kale waalido badan ayaa jira oonan ogolayn inay gabadhiisu ay ku jirto aaladahan sida weyn u faafaya sida youtube kamaahane facebooka oo kale iyo sidoo kale tiktok aaladda la idhahdo ee haada soo baxday dhaqan xumada faraha badan lana ku haysa dalkeena iyo dadkeena taasi oo ah mid si weyn u faafaysa ayaa jira inay muuqaaladan si weyn u gudbiyaan tusaale ahaan aynu soo qaatay sawiradan hablahana iyagu hayga raalli ahaadaan laakiin dhammaantu sawiradan waxaan ku arkay iyaga oo ku jira barahan sida magacan oo kale oo ku qoran yahay kadibna ku jiraan baraha bulshada oo odhanaysa gurdoon ayaan ahay xagee ayay joogtaa qofka jira sawiradan meeday markay aragto waalidkaagu soo noqonaya ayay isleedahay saaxiib amba walaal sharafay ka saar muuqaaladaada noocan oo kale ah facebookaga sidaa had u dhowrsoon tahay u xijaaban tahay u hayso sawiradaada xataa haddii aad dhalinyar ayaa tahay sawiro soo gashay u tirso haddaad qof tirsan qoftu kalsoon tahay haddii kalena ku shubso aalada gmailkaaga amba sidoo kalena ku hayso sawirkaaga telefoonkaaga gacanta ha iska faafin hana gudbinin sidoo kalena hablaha si weyn tiktok u isticmaala aalad tiktok ma ahan kaliya wax dhaqan xumada oo kaliya ku faafta amba ku gaadha falowda badan ee waxay xataa ku gaadhaa kuwa xijaaban oo waad aragtay dad badan oo xijaaban oo gaadhay waqtigii saaxiibood mahadsantihiin assalaamu calaykum